gabdhaha TikTok ayagana dabada wareejinaya lacag baan ku helnaa anu waxaan garan laahay qabiilkan lagu faana markii la raadinayo xilal la isku dilaa la isku laayo ee dumarkii cirdigii sharafta ilaalinayeen muxuu yahay qabiilkan la sheeganayo ee lagu tiirsan yahay ee gabadha ice creamka jidhkeeda ku gadanaysa qabala muxuu yahay maxay tahay dhilaanta maxay tahay damiir xumada inta leeg ee Soomaali dhaxtaal rag baa difaacay rag baa iska dhigay inay wanaageeda ka shaqeynayaan rag baa leh waad gabadha uga hadlaysa xuriyadeeda haysata gabadha Soomaaliyeed goorma xuriyad la'aan ahayd gabadha Soomaaliyeed goorma xuquuq la'aan ahayd soo ilaahay mucazzaz mukarrama kama dhigin bacdaha suuqi baad wareegaysaan waxaad rabtaan baad qabsataan ganacsiyadii baad ku jirtaan yaa guri idinku xidha markaad caalamka aragteen maxaad la dhiganaysaa maxaa idinkaga xidhan maqaawanidii baad u malaysaan ilbaxnimo kala wallah ma aan ilbaxnimo kaa maanta kule gabadha xuriyadeedii weeyaan beri gadaashaadu kaa caayaya waa malcuun lagu soo diro shaytaana weeyaan ma aha ku ka karaameynay qabaa'isha Soomaaliyeed hanaga daayaan buunbuuninta magacyadooda qabiilka aan gabadha Soomaaliyeed lagu xifdinaynin hal iska daayo wallahi maalin walba waxa aragtaa waxaad ku qaracmayso indhiyaada ceshan karin alla yaabayso dadkii ummadda xagee u socdaan xagee loo socdaa mararka qaar waxaa ku qabanayso fayaa mawtu zur ina alxayaata damiimatun wayaa nafsu jiddii ina dahraki haazilu war ma naar baan ku soconnaa ma abwaabti jahannama rabnaa inaan ku daadano hadday raggi noo turi waayeen soo gabdha islaama ma nihin soo diin iyo kitaab qur-aana ma nihin baan ku dayaana gabdhaheenni saxaabiyaadka ahaa qur'aan ku amaanay diintoodii meel la gaadhay maxay ku amaanaayeen naamiyay isqaawin jireen ma dabaday ruuxayeen social media ma jidhkooda ay iskriin ku gadanayeen kallaa wallah cirdigoodii sharaftooda dhowrsanayd guryahoodayna joogeen waxay ahaayeen dad sharaf leh kalaamka allah bay sharaf ku yeesheen diintaasayna sharaf ka raadiyeen innaga sharafteena maxaan ka raadinay tu dhaban soo dhigto baraha bulshada tu gacmaha intay soo jooraysato soo dhigto baraha bulshada tu raangicun intay wejiga marsato isa soo dhigto iyo waxay noqotay mid ice cream jidhkeeda ku gadato iyo mid tiraada ilmihi aan garacsaday aan garacnimada ka ganacsanayay hala igu siiya lacag xageenu soconnaa soo mawd nagama dambeeyo soo qabri nagama dambeeyo soo ilaahay ma aaminsanin ma waxaa rabnaa saan dembigaa ugu jiro inna laga qaado nafta raxmatullaahi wabarakaatu Soomaali weyn meel walbaad caalamka joogtiin waa salaamantihiin salaan kadib farxiyo maxay idiin soo gudbisay maanta gabadhaas hooyadaas maamadaas aan soo arkay oona xoogaa caloosha iga damqatay oo niyadeeda macnaha iyo waxa jira oo rasmiga ah ee ka hadashay anigii macnaha oon hadallada iyada ay sheegto oo ah hadallo oo perfect macnaha wax oo leejal oo sax ay ka hadashay maamada iyo waxa jiro maanta waxa maanta jiro oo gabdhaha Soomaaliyeed ay ku dhaqmaan ayna ka socoto sheekooyinkaas oo maamada ay falanqeysay ama ay ka hadashay oo ka socdo TikTok waxa waaye maasha Allah subxaanallah dadkii wax la yiri camal waxbaa macnaha wax fadhiga laga qaado xishoodkii laga qaado kale u dhaqmaayo heer waxaa la joogaa sida maamada ay ka dhawaajisay ay ka hadashay heer waxaa la taagan yahay maxay dhahaan waxyaabo oon aqliga diidayo oo qof miir qabo iska dhaafee inuu sameeyo kan jiniga qabo xataa aan samayn jirin waagii hore Soomaali ay tiri sida maamada ay tiri ay sameyn jirin ayaa maanta waxay tiri caado noqotay tiri si wax lagu helo uunbaa waxaasna loo sameeyaa ka alamadan xasbi allah wa nimcan wakiil Soomaali weyne waxay tiri inta ku soconayay tiri maxaa aakhir loo iloobo aan isweydiinay bal maxaa aakhir loo iloobo run waay faldarada iyo edebdarada maanta ka socota TikTok 90% naagaha u badan naagihii xishoodka ay ka tageen
dhaqan xumo aan dhammaad lahayn waxaan weligeeni aan lahayn ku fikiri jirin aan aragnay wax damiirkii dadnimada ee diidaysa dadkii maxaa xishoodka ka qaaday ma aqanaayihii maxay sariigta u diideen maxaa xishoodka ka qaaday subxaan allah waa halaag horta aakhirada waxaa lagu yidhi ninkii jannada galaaya ninkii naarta galaayaba marka ugu horeysa waxaa lagu kala bartaaba aad ku arkee baa lagu yidhi adduunyada inta la joogo adduunyada inta aad joogtaadba arkee adoo adduunyada saaranaadba arkee meesha adiga aad markaas u wajahsan tahay ood aadaysid adoo adduunka joogaaba arkee marka la dhahayo beenaa umalay jira laakiin hadda waxaan ogaaday inay run tahay sababtoo ah qof xabadkeeda soo furtay ee maanta dhan naaseeda isku garaacayso oo wilfinayso intay u socotaa jannay gelay maa dhihi kartaa maya ma dhihi kartid calaamad su-aalaa saara adduunyada korkeedaba iyada ay ku bilaabatay wayba iska caddahay haye naag xagga ujeesato dharka soo dhigato futadeeda kaamirada ku toosiso maanta dhan futadeeda luxeyso yaan futo qabin nin iyo ka naag qof daba la-aan socoto ma jirtaa futo la-aan qof taaga ma jirtaa maya yaa tusee ade oo futo la-aan ah qofaan futo la-aan loo uumi ma jiraa maya haddana maanta oo dhan waa taagantaha futadaada wiif balaq marna candhadaadaad isku garaacaysaa baq waa candhooyinkaada ma ka cabsiyeysid inuu kansarkaaga dhaco ma ka cabsiyeysid in hal cudur lebis ah kugu filan oo noloshaada dhan dhulka ku daro ilaahay amarkiis badanaa subxaan allah maamadu waxay ka hadasha waa wax aqligal ah waa wax maanta jira oo ummadda u hoobatayba weliba waxaad arkaysaa mararka qaar tiktoka qaar mararka qaar markaad gudaha u gashid hooyooyin oo iska dhigaya sida ilmaha yaryar oo kale sida gabar fiid oo had soo baxdoo kale waa jimicsanaya ku leedaha kaamiray soo taagantahay waa jimicsanaya ku leedaha waa yeel waa waqtigii jimicsiis waa mooda hadday jimicsanaysa dadka maxaa u tusay markhaati maxaa u badsanay surwaalay soo gashanay lugeeda meesha u qalqalooca may baxdo banaankeeda iskaga soo socota annagana waa jiimaysana waa soo wareega soo soconay laba meelaa isku soo dhufanay dhac tartiibkaaga soo xaroonay cid ku og male maxaa markhaatida u badsanay naarta inaad u socotid maad markhaati maa sii wadanay masii kaxaysanay markhaatiyaashaada may maanta oo dhan waa taagantaha hawdhe maxaa xasbi allah marka asxaabee markhaatiga ha badsanin tiktok markaa soo gashid oo wax xun aad samaynaysid markhaatiyaa samaysanaysa oo beri aakhira kugu markhaati furaaya inaa saas yeeli jirta looma baahna maamadan sidee u hadasho wallaahi bilaahi ninkii wax fahmaayo oo islaamnimada ay ku dambeyso oo ahlu janno ah hadalkeeda fahmaya munaafiq oo ku tashada inay futadiisa isku bayac mushtiro iyo naasihiisa yaa labacyada dheerdheeraanta badan meesha lasoo dhigaayo naa ku tashatay inay ku shaqaysato waa macnaa lagama yaabo inay janno uriso marka maanta maalina ahayn oo adigana aad wax ka keeni karin toobana aad ka keeni karin yaa aad ka tooba keeni karin aad gaaree maalintaasna ma dhow ma dheera habeen iyo maalin wuu ku dhinac socdaa malaka moodka wax kuwa macnaa oo muddo kugu qaadahayo ma aha waa seexe oo kula jiifaa waa soo toosta oo kula socdaa dhinacaagu taagan yahay malaka mood wax la raadinayo ma aha wax kaa dheer ma aha adiga oo sanooyin aad sugaysa saacad walbaa ku tashan kartaa inay nafta kaa bixi karto xasbi allah nimca wakiil marka ilaahay qafuur raxiim waxaan ka baryaynaa inuu ilaahay toobada iyo towxiidkana waafajiyo annaga iyo waxaan dhalnaba inuu ilaahay macnaa jidka toosan oo mustaqiimka inuu ilaahayna marsiiyo hooyooyinkan waaweyn oo tiktok joogo igan isdharaaminayo is ilmeynayo oo jimicsiyaan sameynayo jiiman ku jiro camal oo irsaakha ka raadiso surwaal soo gashayso idin meesha ko lama ilma camal nyagtaas ku haasoo neeftuureysana waxaan leenahay ka toobakeen haddaa samaysihees gurigaaga ku sameyso cid ku arkeen markhaati aad kusuubsan ni ik naag hadda ay ku fiirsanayaan adduunya ilaahay subxaan allah waa laga fiican yahay hooyo is astur gabdhaha walaalaheena is astura
waxaa la yiri ninka uu muslimka ah waxaa waajibka ah la yiri oo macallimiinta dugsiga sheekhyada hooyooyinka in macnaa wixii xun ay arkaan inay ka hadlaan waa waajib saaran oo diini ah qofkii ka aamusaa la yiri waa ahlu naar gabadhan maanta balqaheeda tuuraysa haddaa aragtid ka hadal ha ku camal falad mase ku camal falan iyaday u taala waayeeshan kaamiro soo istaajiyayso maanta dhan dhehaysa jiimaan joogaa oo jag ku hayso u sheeg inaan waxa ay sameynayso wax fiican aysan ahayn. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wabilaahi towfiiq. Ilaahay waxaan ka tuugaynaa towfiiq Allah na waafajiyo insha Allah. Asalaamu calaykum.